waxaa halkan looga mahadcelinayaa dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed iyo ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan xafladan caawa lagu soo dhaweynayo wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle injineer Cabdi Macallin Maxamed waxaanu leenahay wasiir marka hore ku soo dhawow magaalada London jaaliyadaadii oo ku hawlan maanta kugu soo dhaweynaysa magaalada London ku soo dhawow maadaama aan dad muslimiin nahay waxaanu ku bilaabanaynaa insha Allah aayadaha Qur'aan Kariimka ah waxaana inoo akhrin doono Xasan Xuseen Ibraahim Bismillahir Rahmanir Rahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Sadaqallahul Azim واتهاي هذا برنامج كأني أيام فرناينا هدي الله يراهدو وحن كسر دوينيا وذي كم إذا وذي عند قمدية ذا كنا كان مجالات لندن لقونا مجعابو علي محمود حيرانه دمان جالية الصومالية شرفت له السقوط تمد قابتان قيمها بدن لقوسو دوينيو وسير كوزارة عافمات كا هيرشابيل iyo dhamaanba ikhyaarta kale ama waftiga kale oo la socdo oo hogaaminayo dhamaantiin waa mahadsantihiin dhamaantiin soo dhawaada ku soo dhawaada madashan qiimaha badan gaar ahaan mudane wasiir ku soo dhawow jaaliyadaadii aad hawlaha qaran uga tagtay haddana aad muxuu ahaa hawlo qaran u timid aadna soo booqatay soo dhaweynta ay ku soo dhaweynayaan ku soo dhawow dhamaanteen waan ku soo wada dhaweynaynaa wixii akhbaaraad ah oo aad dalkii nooga hayso khaasatan Hirshabeellana insha Allah adiga ayaan ka warsugaynaa haddii alla yiraaho dhamaantiin aad ayaa u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan ku soo dhaweynayaa maama dhaqan Ibraahim oo ku hadli doonta magaca hooyooyinka عاو ماشي waxaan ku soo rooyinaa Cabdi Macallin Axmed oo wasiirka Hirshabeelle anigu waayaha kan waa ka maqnaa hadalka waxna iima diyaarsana laakiin waa igu gaadeen marka wasiirku horta wadankiisii ha ku soo dhawaado uu ka tagay jaaliyadiisii ha u yimaado warna waa ka sugaynaa iyo wax qabad wixii uu maaragtay wadankii uu ka wado وعاو قابت نوغا شيغي دونو تاس وسيركان كسوغينا وحان كالو كسوغينا مقالة هيرشابيل ماشا اي كو مقعابان تهي وهيرشابيل وبيغا شابيل انتو مرودن او كبلابا تبرعد ساسا انا نوغو مالينا انكسون انا قرير دا سفي عنو كلاقون وماشي صومالي لغا سو اساسي رنتي وانا ماشي بسارد واياhan ku badatay waxay noqotay bahal galeen Soomaalida iyadoo noqotay ayay haddana ugu daran tahay waxay noqotay meesha marna abaartu ku soo watahdii oonka mar biyo ku soo bafakadaan wixii uu nooga wado barnaamijkaasna waxaan ka sugaynaa wasiirka insha Allah dad kalena waa iga dambeyn doonaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan ku soo dhaweynayaa qaar ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed iyagana ku dhaqan magaalada London Suldaan Axmed حسن حاشي marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyarada xafladan noo soo abaabushay ee juhdiga noo soo gelisay xafladan quruxda badan leh iyo dadweynaha sharafta leh ee loo yeeray ee haddana ka soo ajiibay salaanka bacdi waxaan rabaa xafladan oo laba arrimood saabsan soo dhaweyn iyo sagootin labadaba ah iyada oo bil Ramadaan ay foodo nagu soo hayso oo noo suura galay inaan xaflad kale aan samayno oo sagootina aan labadiiba isugu darno wasiirka waxaan leenahay wasiirka maamul goboleedka Hirshabeelle injineer Cabdirasaaq Macallin soo dhawow marka ugu horeyso in badan ayaa dad soo dhaweysay laakiin caawa adiga ayaan ku soo dhaweynaynaa marka waxaan ku leenahay soo dhawow wixii warbixin ah oo ku saabsan dhulkiina inta kolley hadda miidiyaha ayaa waxyaalo badan wax kasto dhaco maalin walba waan ka aragnaa laakiin waxa noo dhiman insha Allah adiga ayaa noo sheegi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida aad wada ogsoontihiin caawa marti badan ayaa joogta
waxaa nagala soo qayb galay qaar ka mid ah madaxda u qaabilsan waddankan Ingiriiska maamul goboleedyada Jubbaland Puntland iyo Galmudug waxaan marka hore mahadnaq u jeedinayaa ilaahaygii inoo suurageliyey inaan caawa halkan isugu nimaadno waxaan mar kale iyadana mahad u celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee caawa soo abaabushay munaasabadan quruxda badan oo aan ku soo dhaweynayno wasiirkeena Hirshabeelle Cabdirasaaq Macallin Maxamed waxaan gaar ahaan u mahad celinayaa jaaliyadda Hirshabeelle oo uu ka soo jeedo wasiirku waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin inta markaan ka gudbo anigoo ku hadlaya dhammaan jaaliyadaha muxuu ahaa Soomaaliyeed ee UK Cabdi Macallin haddii wax yar aan halkaa idin taabto waa saaxiibkay Cabdi Macallin awowg baan u ahay Cabdi Macallin hiiraan baan islana Cabdi Macallin waxaan islanahay business partnership oo UK wax badan baa na soo dhex maray Cabdi Macallin waa niman aad iyo aad muxuu ahaa isugu dheernahay xaqiiqiyan waxaan u leeyahay aqoon igu filan Cabdi Macallin waxaan rajaynayaa Cabdi Macallin tagada loo dhiibay ee lagu aaminay ee wasaaradda muxuu ahaa waxbarashada ee caafimaadka inuu leeyahay kartideeda iyo aqoonteeda iyo dadnimadeeda baan aad iyo aad u rajaynayaa uu ka soo bixi doono Jubbaland haatana waxaan u yeerayaa sidoo kale Ali Daahir Seed oo ku hadli doona magaca Puntland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan kala soo qayb galo markii labaad reer Hirshabeelle xaflad ay u dhigayaan sharfane ka mid ah sharfanayaashooda tii hore waxay ahayd soo dhaweyntii madaxweyne Waare moodku wuxuu ahaa mood iska gaaban oo aan qosol badnayn sacab badnayn I hope caawa inuu mid sacab badan yahay oo aad iyo aad u fiican oo macaan taa weeye Cabdi sida la sheegay waa nin reer UK ah waa nin matala wasiir kamida wasiirada Hirshabeelle isla markaana ah caawa wakiilka iskaashiga dawlad goboleedyada ayuu caawina kala joogaa oo I hope inaydan ilaawin midda ayada because waa wax wanaagsan oo jira weeye waa institution jira weeye taa markaan ka gudbo Cabdi waxaan ku leenahay soo dhawow mar kale ku soo dhawow reer UK ku jecel kana filanaya dalkii inaad miisaal uga noqotid maadaama la yiraahdo qurba joogtu wax badan ma soo beeriyaan de waana la ka arag inteeda fiican baan ula karnaa Cabdi oo kala baan ugu jiray taas weeye dhinaca kale markaynu u noqono aad iyo aad baan uga murugaysnahay daadadka ina heray dhibta ina gaadhay hadday tahay Hirshabeelle hadday tahay Jubbaland iyo hadday tahay gobolladeena kale ee qaaliga ah ee walaalaheen dhibaatada ku gaadhay xag dhaqaale iyo xag nafeedba waa la murugaysanahay murugo weyn bay nagu tahay really inaynu u gurmanana waa waajib inaan saaran ka sokow Soomaalinimada waxa weeyaan muslimnimadan leeyahay waajibaad dalba ina ka saaran waxaan ku soo dhaweynayaa oday ka mid ah odayaasha dhaqanka odayaasha guurtida ee magaaladan aan ku leenahay waddankan aan ku noolnahay ee Ingiriiska oo lagu magacaabo Yaasiin Bulsho isla markaana ah odayaasha xafladan qiimaha iyo qaayaha leh ee lagu soo dhaweynayo injineer Cabdirasaaq oo ah wasiir Hirshabeelle waxaan rajaynayaa biidnillaahi alkariim caawa waxyaabo badan baan soo dhaweyn jiray laakiin markaan soo galay albaabka ka soo galay inkastoo aan soo daahay يعني أنت أنا كالوزير مسؤول وين ولقيت مركب حمو غني إنجنير كان من لندن يا مركب إن شاء الله وحرجينا يعني وحن لنا ولكن كسر دو
dadka gogashaan dhigana aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa sida sharafta leh oo heybadda leh maarta muxuu ugana soo qayb galeen isla markaasna ay u soo dhaweeyeen walaalkood asagoo ah nin annaga naga tegey oo waddankan maarta ingiriiska wax ka deganaa oo jaaliyaddeena ka mid ahaa inuu caawa annaga asagaan maarta muxuu soo dhaweyno asagoo mas-uul ka ah maamul goboleedyadii laysku waafaqay oo federaalka mid ka mid ah maxaa yeelay federaalku mid iska dhasha ma aha waa mid macnaha ummadda Soomaaliyeed waxay doonto ahaato bacdamaa la kala tagay oo la kala irdoobay oo wiil iyo walaalkii ay isdardareen oo aabbe iyo hooyo oday iyo hooyadiis isdardareen oo abti iyo adeer isdardaray waxay qasab noqotay in macnaha ummadda sidee la isugu soo celi karaa maxaa yeelay sidaasaba dawladdu waxay ku timaadaa qoyska inuu ka soo bilaabato qabiilka lagu sheegayo maanta maarta umbooda xogaa cudurkana nagu ah haddii uusan macnaha qoys laba walaalo wada dhalatay aysan ilmo caruur isku dhaleen ay sii badan qabiilka ma jiri lahayn dawladnimaduna waxay ku timaadaa bayska hoose in Soomaali marka waxaan rajaynayaa biidnillahi alkariim injineerka wasiirka caafimaadka laga dhigay caafimaadku ninka injineerkan waxaan ku ogaanay dhismaha howlaha guud waxaan rajaynayaa marka dawladda Hirshabeelle dib inay iskugu noqoto sida dawladdan hadda Soomaaliya oo kale nin beeraha yaqaan waxa loo dhiibay biyaha iyo korontada maxuu korontada biyo ka yaqaan xoolo yaqaan marka taa in laga bedelo nafteeda dawladdan waa ka codsanaa dhexe dawladda maamul goboleedkan waa ka codsanaa nin walba professionkiisa macna qabiil ma in lagu siiyo professionkiisa waa in loo dhiibaa soo awood ugu yeesho togagan hadda naqaada inuu soo looga celiyo engineer waaye oo shubab u dhiso wassalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed cusmaan cagabiyo oo ku hadlaya magaca qaban qaabiyaasha bismillaahi raxmaani raxiim waan mar labaad aan ku soo dhaweynayaa xafladda anoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta injineer cabdirasaaq macalin maxamed wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle marka waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii ka soo qayb gashay waxaa dhammaan maamul goboleedyada dambe oo hadli doono iyo wasiirka waxaan ugu talagalnay marka inaan si fresh leh mar kale aan idinku waxaan nala joogo Jubbaland Puntland Galmudug iyo Hirshabeelle odayaashii oo hadleen marka anoo munaasabad ka faa'iideysanayo waxaan rabaa inaan halkan ku soo dhaweeyo aadan xaaji jibriil oo ku hadli doono magaca jaabiri aadan xaaji jaabiri oo ku hadli doono magaca Galmudug السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله سلامة إسلام كأيان دكتور سلام هيا دمانتين دتكينان شرفت له عاوة حفلة دان كسوقي بقى مناسبة دان رنتي معناه هذا أما وجدد وحي تهي سودوينتا أنو سودوين إنه وزيرك عافيماتك دولة قبلاتك هيرشبيلة عبد معلم horta Hirshabeelle aad iyo aad baad u nasiib badan tihiin maadaama Cabdi Macallin aad u magacaawdeen wasiir aad u magacaawdeen aad baad u nasiib badan tihiin haddaan Cabdi Macallin wax yar idinkaga sheego wax yar haddaan kaga sheego Cabdi Macallin waa nin xishooda waa nin daacad ah waa nin aamin ah jagadaas loo dhiibana waa nin ka bixi kara oo maaragtay ka soo dhalaali kara way anu waxaan dhihi lahaa haddii laga dhigi lahaa wasaaradda maaliyadda haddii loo dhiibi lahaa shilin idinkama qaateen cabdi shilin idinkama qaateen cabdi nin daacada weeye aqoonta aan u leeyahay taa haddaan uga baxo Cabdi Macallin haddaan uga baxo dabcan siyaasadda waa laga hadlay raggii igu horreeyaa ka hadlay xukuumadday ka hadleen maamul goboleedyada laga hadlay xukuumaddu dabcan dhaliil waa leedahay way lahaan kartaa waa bini aadan qofka isagoo dadaalahaya oo raba inuu wax qabto ayuu kufayaa
waa ogtihiin meesha aan ka soo bilownay meesha aanu ka nimid ragga maanta madaxda noo ah oo hoggaanka noo ahna rag dhallinyaraa weeye rag siyaasadda hore ugu jiray ma ahan sidaa daraaddeed marka waa ay ku fayaan waa khaldamayaan annagana marka waxaa naloo kaga baahan yahay annagu waxaan u baahannahay waxa weeye waddanka sharaftiisii iyo karaamadiisii oo soo laabta sidaan ahaan jirnay 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor marka waxaan rabnaa annaga inaanan waxba iska hadlayn hadday nimanka dhalinyarada hadday wax khaldameen sida ragga saaxiibada iga horeeyay u sheegeen in dhaliil constructive ah wax dhisaysa ma ahan mid wax duminaysa looma baahna waxaad aan xaqiiqsanahay oo aan ognahay in magaalada xamar runtii nabad wanaagsan oo fiican baa ka jirta horumar wanaagsan oo fiican baa hadda ka jira oo ka roon oo ka fiican sidii hore nabadgelyo wanaagsan oo la isku haleyn karaa ka jirta kaliya waxaanu u baahannahay marka xukuumadda aanu ka codsanaynaa maamul goboleedyada xoogaa waxa ka jira differences iyo xukuumadda differences baa u jira ayagana waxaanu rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi tacaala aanu ka rajaynaynaa ayadana in wada hadal iyo negotiation lagu dhameeyo mar labaad iyo mar saddexaad cabdi macallin waa soo dhaweynayaa idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin kana waxaa inoo haray wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle injineer Cabdirasaaq Macallin Maxamed kala soo dhaweeyay wasiirka la soo dhaweeyay sacab dhammaantiin waad salaamantiin waxaan rabaa inaad idinkaga mahadnaqo qabanqaabada tan aad u weyn oo bilowga ah anigu markii hore kumaana jirin siyaasiyiinta waaweyn kumaana jirin xubin idinka mid ah oo jaaliyadaha idinkula jirta ayaan ahaa waxay markii ii muuqataa kalsoonida aad isiiseen waxay igelinaysaa mustaqbalkayga inaan u jeedo inuu soo ifahayo waadna ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego salaan weyn oo aan idinkaga sido madaxdii reer Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe baarlamaanka uu hogaaminayo Sheekh Cismaan iyo ku-xigeenadiisa golaha wasiirada iyo dhammaan dadweynaha reer Hirshabeelle salaantaas kadib haddii aan u guda galo waxa aad iga sugaysaan hadday ahaan lahayd
dowladda federaalka oo aan ka nahay xubnaha dowlad goboleedyadu ay ka yihiin iyo hadday ahaan lahayd waxa ka jira dowlad goboleedkii Hirshabelle haddii aan ku hormaro dowlad goboleedka Hirshabelle oo anigu aan ka ahay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada isla markaasna aan rabo inaan u sheego raggan meesha fadhiya iyo gabdhaha kan hooyooyinka iyo gabdhaha kaleba in ay ku lamaansantahay wasaaradda haweenka wasiir dowlana ay noo tahay Sacdiye Buris oo ahayd wasiirkii wasaaradda haweenka ee Hirshabelle dowlad goboleedka Hirshabelle waa dowladda ugu da'yar dowlad goboleedyada Soomaaliya sidaas daraaddeed waa dowlad soo koraysa oo rabta inay dadaasho waxayna nasiib u yeelatay inay tahay walaalka ugu yar dowlad goboleedyada kale oo dowlad goboleed kastaba ay rabto inay gacanta qabato oo ay wax ka koriso meel kasta oo la isugu imaado dibadda iyo gudahaba dowlad goboleedyadu waxay ballan qaadeen inay gacanta qaban hayaan ilaa ay soo gaaraan sida hadda ay maanta ay yihiin dowlad goboleedyada Soomaaliyeed walaalka ugu weyn waa Puntland weeye waxay soo dhismayeen oo ka caakufahayeen muddo ka badan 25 sano annagana waxay noo yihiin dhammaanteen reference aan ku dayano meeshii ay mareen inay ayaguna noo tilmaamaan inta kalena waa isku xigaan waxa weeye marka waxa dhammaan member laga yahay dowladda federaalka waxa weeye Soomaaliya waxay leedahay mustaqbal waxaad arkaysaan wax walba in la isla falanqeynhayo laga wada hadlahayo dimuqraadiyadu waxay taalaa Soomaaliya maanta wax kasta oo laga wada hadlana la isuma aamusahayo wax kasta oo imaada waa laga wada hadli waana lagu heshiin bal midaas horta inaan anigu markaan banaanka jiray ma aanan ogeyn laakiin hadda waxaan arkay wax walba in laga wada hadlahayo wanaagna ay ku dhamaanayaan marka ugu dambaysa nin kasta oo madax noqda ama madaxweyne noqo federaal ama madaxweyne noqo dowlad goboleed waxa sida shacabku ay ku taageeraan maalintaas ayaad muraayad isugu fiirinaysaa waana inaad u jeedo maalin kasta taageeradaadu inta ay la egtahay haddaad aragta ayadoo lagu kacsan yahay waa inaad ku dadaasho siyaasi weyn ma ahi laakiin waxbaan una aqrinayna intaas waa inaad wax ka bedesho wixii dadku ay ka dideen haddaad ku sii socoto waxba kuma hirgelahayaan shacabkuna asagu dhib ma abuuro sidiisaba meel kasta oo joogo shacab dhib ma abuuro nolol buu u baahan yahay haddaad noloshoodii iyo xasilin aad ku socoto way ku daba kacayaan haddaad ku joorfasho way kaa jeesanayaan ayagaana iska leh midda ugu dambaysa go'aanka ugu dambeeya shacabka iska leh waayadii carabtu ay halgamaysay
oo aniga iyo hadda raggan odayaashu aan iskuullada dhiganaynay waxaan naloo aqrin jiray yaasiin wuxuu yidhi waxaan kaabagalaas u ahaan jiray oo jaabiri ayaan kaabagalaas u ahaan jiray yidhi waxaan naloo aqrin jiray markay carabtu ay halgamaysay idaa shacbul araada alxayaa an yastajiibu alqadar shacabku hadduu nolol doono ilaahay waa ka ajiibaa haddayba ayagu nolol doonaan shacabka marka hadda nolol baan doonaynaa gudaha iyo soomaalidaba gudaha iyo dibaddaba waa isku xirannahay madaxdu darajo kasta ha lahaatee waa inay ogaato waxa aan u baahannahay haddii aan u soo noqdo marka hirshabeelle oo anigu aan wasiirka caafimaadka ka ahay waxaan nahay saan idiin sheegay dowladda ugu yar caafimaad wasiirka caafimaadka ayaa taa la yidhi waxaa dhici karta inaadnaan dhammaanteen inaanaan arag gudaha inaanaan u gelin soomaaliya wasiirka caafimaadka cidda u baahan oo u nugul waa haweenka iyo carruurta inkastoon dhismo iyo civil engineering aan ku jiray saaxiibkay aan isku galaas ayin baa halkaa fadhiyo waa u mahadnaqahayaa waa engineer geedi weeye waxaa weeye wasaaradda caafimaad baan ka shaqaynayaa laakiin wasaaradda caafimaadku waa wasaaradaha dhisan ayay ku jiraan waxaa jooga takhaatiirtii darajo kasta oo ay leeyihiin wasiirku yacni haddii wasaaradda caafimaadka la geeyo waa collective policy uu asagu uu hogaaminhayaa laakiin wixii si oo technical wax u qabanhayay waa takhaatiirta weeye wasaaraddaas marka la geeyey male isbitaallo male waxaa jira 2 isbitaal oo midna uu ku yaallo beledweyne midna uu jawhar ku yaallo takhaatiirtii waa ay joogaan soomaaliyeed wayna soo badan hayaan oo qof walba wuxuu bartay waa medical buu bartay waa ay joogaan rag iyo haweenba waa ay joogaan laakiin qalabkii male waayo waxaa meesha ka baxday dowladii dhexe ee Soomaaliya ay lahaan jirtay ayaa muddo 30 sano ah meesha ka maqan sariir male joodari male dharkii la saari jiray male mashiinadii male waa hadda iyo kow koleytaba waa la isdhaawaa oo dowlad goboleedka Puntland muddo badan bay soo socotay waa ay ka wanaagsan tahay inkastoo aan soo booqan laakiin meelaha kale waa isku wada mid way waa isku wada mid magaalada beledweyne haddii aad tagto waa 2 gedi way hal gedi oo bariga isbitaal ku yaala gediga galbeedka ah dhinaca galbeedka ah gabadha ku foolata haddii mar la dhaafo 2 saac oo habeenimo haddii la dhaafo ama 8 habeenimo sida qof walba u yaqaano halkeeda bay ku badbaadaysaa ama ku dhimanaysaa isbitaal lama keeni karayo sababtoo ambulance male baawur kalena laguma soo qaadi karo mar haddii 8 la gaaro cid wax isu soconaya ma jirto jawhar beledweyne isbitaalkeedii public ahaa weeye hay-ad baa rangaraynaysa jawhar laakiin waa isbitaalkii meeshii uu ku ooli jiray waxay noqotay meel qaxooti degan yahay oo burbursan oo dhismihii oo dhan ebrihay oo yacni aan laga saari karin waxa ay ku shaqaysaa waa gurigii dawladu ay lahaan jirto gobolka looga talin jiray weeye ayaa 27 sano isbitaal ah hay-ad baa marka ayadana rangaraynaysa oo rabta inay ka tagto yacni
meeshaas marka dhibku uu ka jiro ayaan wasiir u ah tiyo sidaasa ayaa waxaa dhacday haddana in webiga Shabeelle uu marna biyuhu ay ka dhamaadaan oo biyo yaroo wasaq oo milix ay soo harto oo dadku ay cabaan oo ay ka qaadaan cudurro kala duwan ay ka qaadaan marna si xawli ah oo u imaado oo caradii dhamaa ay noqdaan daad ay noqdaan bisha tan dhexdeeda wadaadadu waxay aqrinayeen roobdoon ducadii bay badiyeen ducadii markay badsheen ilaahay amarkiis biyo ilaahay tiradii ka badshay ayaa kor iyo hoos ka yimid marka hadda waxay leeyihiin marka ducadii oo roobka lagu joojin jiray faqultu astaghfiru rabbakum yursilis samaa alaykum madraino hadda la aqrinaya waa la qunuudhayaa hadda awalna waa la qunuudhay marka dhibaatadaas yani dadku waxay leeyihiin dadka waaweyn iyo dadka yani culummadu waxay leeyihiin gacanteenaan ku abuurana oo niyadeennaan isu fiicnayn bay leeyihiin marka arrimahaas dhibaatada oo jirto oo biyaha dawlad goboleedyada naga waaweyn isla markiiba way ka jawaabeen dawlad goboleed kasta waxay ballan qaaday inay Hirshabeelle gacanta qabanayso wayna ka dhabeeyeen dawladda federaalkana way dadaashay dawladda federaalka iyo gobolka Banaadirba waa ay dadaaleen waliba ayagoo siyaasadoodu ay isku qasan tahay oo ayagu macnaha muran uu ka dhex jiro ayay haddana macnaha dadaaleen kaliya marka waxaa la rabaa dadka Soomaaliya jooga waxay dhaan beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ee dibadaha jiray dhaan labadaas ma kala haraan waxay u maleeyaan laba oo resource oo ay leeyihiin oo ay ku tashanayaan ayay u maleeyaan marka waxaan doonayaa marka taas inaad ogaataan waxaan ku faraxsanahay Soomaali kala duwan inay cawado meesha fadhido marka qaada risaaladaas qaada awalba dadka annaga caawinaynay hadday abaara dhacaan iyo haddii cudur dhaco waxaan ahayn dad caawiya dadkooda ama si shakhsi ah ama si jamaca marka risaaladaas caawada qaada isku tashada halkaas waxay idinka sugaysaa jawaab bay idinka sugaysaa halkaas waxaan ogahay magaalada London xaafadaheeda kala duwan rag iyo dumarba inaan ka nimid mas'uuliyadna inaan qaadi karno oo aan u geyn karno oo guddiye aan samaysan karno horeyna kolba waa u jireen laakiin awoodeedna inaan jamcin karayno oo aan dadka reer Hirshabeelle iyo dadka reer Baardheere oo si la mid ay biyuhu ay u harqiyeen inaan wax u qaban karayno ayaan rumaysana waxaan rajaynayaa Soomaaliya waa dimuqraadiyad bay u socotaa shirka ka dhacaya Baydhabo oo dawlad goboleedyadu ay isugu imaadeen inuu u dhici doono si dimuqraadiyada waxyaabo wanaagsanna laga soo saari doono oo u roon ummadeenna hadday ahaan lahayd dawlad goboleedyo iyo hadday federaal ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd dadka qurbaha jooga iyo hadday ahaan lahayd kuwa gudaha jooga wax rajo iyo diila gasha inay ka soo bixi doonaan baan anigu aan aaminsanahay waxaan rabaa inaan maaragtay raggu waa wada ay ammaaneen waana idu wada yaqaanaan
laakiin abtigay oo wax aadnaan ogeyn ay naga dhaxeeyaan oo ganacsi iyo haddana kilalka shanaad baan iskala nimid sidaasaan beledweyne aan ku soo dirdirnay waa u mahadnaqahayaa ammaantiisii saaxiibkay jaabiri oo isaguna maaragta aan saaxiib weynahay waa u mahadnaqahayaa master said oo odaygeena ah oo ah walaalkii noogu weynaa waayo waa walaalkii noogu weynaa waayo ogaada middaas ma aha ceeb ma aha waa maamul soo dhisnaa oo noogu weyn waayo waa u mahadnaqaynaa taasna ragga dhallinyarada ah oo halka kan wariyayaasha iyo ragga kan muusikada iyo heesaha macaan oo tumahayay ayagana waa u mahadnaqahayaa guddiga soo abaabulay waxa kan iyo odayaasha iyo gabdhaha waa u mahadnaqahayaa iga raalli ahaada ma ihi nin qodbayn jiray ma ihi laakiin haddaan iskuulkii siyaasadda soo gala marka insha allah waa guul baan idin rajaynayaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo dhibka ilaahay ha ka saaro hogaamiyayaal wanaagsan baan aan noo joogee kuwo kalena allaha noogu daro sii tiro badan waa mahadsantiin